waxaan marka hore inaan u mahadceliyo guddoomiyaha iyo guddoonka baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenada iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo dad kale guud ahaan lagu soo dhaweeyey magaalada Kismaayo oo aan safar shaqo ama shir ugu maqnayn muddo aan malaynaya dhowr iyo toban beri inay tahay iyo dhammaan ilaahay nabad nagu soo celiyey maanta gurigeyga annagoo nabadgelya kusoo noqonay intaa marka laga tago waxaan rabaa inaan u mahad celiyo marka hore madaxweynaha ku-xigeenkiisa guddoonka baarlamaanka xildhibaanada iyo dhammaan reer galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb dadkeeda waan is leeyahay waxay muujiyeen isxilqaan aada u weyn soo dhoweyn iyo iyaga oo magaalo dhan oo kulligeed isu wada diyaarisa inay u khidmayso ama ay u shaqayso dadkaas iyo shirkaasi sidii uu ku guulaysan lahaa aanan odhan karo daal badan iyo colays badan bay la kulmeen laakiin aanan islahayn markii hore way dabooli karaan baahida intaa leeg ama shirka intaa leeg iyo dadka intaa leeg oo la isugu wada tegay Soomaali ay hoosti garayn karaan haddana markaad sida kale u fiiriso waxaanan ka filin aan ugu tagnay magaalada dhuusamareeb isxilqaanka maamulka cusub iyo dib u heshiisiinta sida ay hadda ahayd iyo dadku si ay isugu soo dhawaayeen intaa marka laga soo tago shirka aan u aadnay magaalada dhuusamareeb wuxuu ahaa shir laba weji ahaa qaybta hore shirka oo ahayd bal inaan is aragno madaxda dowlad goboleedyadu iyadoo waddanka la yaqaano xilligan oo kale markii muur doorasho la galo in isbedelle iyo hadal iyo walaysyo badan ay jiraan kulan la-aanna ay jirtay madaxda dowlad goboleedyada iyo kuwa qaranka labaduba inaynan waayahan wax kulan uuna jirin ay noo soo baxday inay muhiim tahay xidhiidho telefoonna oon samaynay inaan isu tagno madaxda xubnaha ka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka oo bal aan isweydiino waxa annaga naga dhexeeya xaaladda guud ee waddanku meeshay marayso maxaa inala gudboon kadibna saad u aragteen bayaankii aan soo saaray ama warmurtiyeedkii aan soo saaray war-saxaafadeedkii uu ahaa waxaan noo muuqda een arkaynay iyo annagoo dib ula hadhnay oo nini markaa waxaan u baahannahay madaxdii qaranka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu specific inay noo yimaadaan si aan usii dhammaystirano waan uga mahad celinaya iyaga laftirkoodu way ajiibeen waktigii aan ugu talagalnay bayna ku yimaadeen taasaa markaa waxay keentay inuu shirkii dambe uu socdo muddo dhowr maalmooda waayo wuxuu ahaa shir waayahan aan dhicin dadku way kala baadeen madmadow badan baa jiray is arag la-aantuna wax badan bay keentaa siyabaa reer jubbalandna dee waanownahay iyo dowladda federaalka iyo dareen badan iyo wax badan baa isu wanaayo dadku markaan hadalla ama soo galla ama sawir kalea la wada qaadanayo laba xaaluu ahaa xilligan waxaa noo muuqatay waxa in la fogsgareeyo u baahan inuu ahaa arrimaha doorashooyinka sababtoo Soomaaliya markaan ka soo qaadno tallaabooyinkii ay soo martay shayga ugu muhiimsani ee deganaanshaha ama xasiloonada siyaasadeed keenaya wuxuu ahaa arrinta doorashooyinka oo qof waliba marka uu dareemo in doorashadu ay u dhacayso ama xilliga kala wareega ama si uu kalsooni ku qabo waxay qayb ka noqotay xasiloonada siyaasadeed iyo deganaanshaha siyaasaddu marba siduu yahay arrintaasi dood dheer iyo hadal dheer bay gashay waxaan aada isu weydiinaynay doorashada la qaban karaa waatee waxaad garanaysaan dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaa ku qoran xildhibaanka maanta jira waxaa bedeli kara xildhibaan qof iyo cod lagu soo doortay doorashadu waa inay noqoto doorasho qof iyo coda iyadoo sidaa tahay baa intii ka dambeysay shirkii Jabuuti dowladdii lagu soo dhisay isku darsigii Sheekh Shariif 2012 tii Xasan Sheekh iyo tan 2016 February madaxweyne Farmaajo uu ku yimi intaba xaalad si u soo socoto ayaa waxaa soo baxaysay in aynan noqon karaynin
doorasho hal qof iyo hal oda inay dhacdo. waad ogtiin xeerar badan baa lasoo saaray, baarlamaanku waxbuu soo saaray, guddiga doorashooyinka waxbay akhriyeen, wax badan baa jiray. laakiin shayga asalkii waxa weeye waxani ma dhici karaa mise ma dhici karayo, xaaladdan lagu jiro nooca wax muu qabsoomi karaan mise uma qabsoomi karayo. waa su-aalaha waxay ahaayeen yaalla meesha. maxay kaga bedelan tahay kuwii hore? sababtoo ah marka doorasho hal qof iyo hal cod la qabanayo waxaa ka mid a wax badan yaa u baahanaya in amniga waddanka wax laga qabto oo dastuurka dhamaystirkiisa 4.5 iyo hawshiisii arrinta somaliland masaa'il badanoo waxaa jira saameyn ku yeelanaya. ilaan muwaadinka soomaaliga ah kana kursiguu qaadiyo wuu codayn, kana xaq inuu codeeyo uma laha. labada kursina midna waa lasoo magacaabi oo ergeyar baa soo dooran, midna shacab baa loo bandhiga way soo dooranayaan. 275 qof isku xuquuq bay noqon karaan, ma kala duduwanaan karaan. taa markaa waxay noqotay in laga gaadho heshiis siyaasadeed. sababta keentay madaxda qaranka, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk inay isu yimaadaan oy shir xidhan uga wada hadlaan waddankani xagee buu marayaa, see la yeelayaa, maxaa qabsoomi kara, maxaan qabsoomi karayn. beesha caalamka iyo dadka kale iyo kulli qof waliba wuxuu danaynayaa xasiloonida soomaaliya iyo in iskala wareega xilligani uu ku kala wareego xilliga si aada u fudud oo qabow. qof ajenda gaara wadan karaa ma jiro. ajendaha guud waxa weeye deganaanshaha iyo xasiloonida waddanka in la ilaaliyo. arrintaasaa markaa waxay keentay inaanu isweydiino, marka dambena heshiiskaad aragteen ee warka saxaafadda kusoo baxay, warmurtiyeed kusoo baxay laga akhriyay uu noqdo. bal inaan kala maqnaanshuhu waxay keentaa culays badan, waxay keentaa aaraa badan oo suuqa iska wareegaysa, waxay keentaa tashi la-aan, waxay keentaa wax badan oo badan baa meesha jira. in aan guddi qabanno executive ama fulin ah oo wasiiro state walba hal wasiir iyo hal qof oo farsamo yaqaana iyo dowladda federaalka ah golaha wasiirada cidda ay ka khusayso, inaan intaas la qabto oo shirkaasi labada qaybood ka kooban dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ergooyinkooda inay soo diyaariyaan bal aragtida iyo sida ay ula muuqato in doorashadu ay ku dhici karayso, iyadoon ognahay in aragtiyo badan oo guddiga doorashooyinka iyo baarlamaanka iyo guddi kale iyo waxaasoo dhan ay jiraan. haddana xaaladda aan ku jirna maanta wixii dabooli karaya inay dib usoo fiiriyaan. laguma daynina waa la waqtiyeeyey oo waxaa la yidhi waa in shirka labaad dhuusamareeb oo hadda dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo maraysa, maadaama isxilqaan badan iyo dadaal badan uu jirayo waqtigay hadda joogeen, in la yidhaahdo 15 August shirkaa kale in la isugu yimaado magaalada dhuusamareeb oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka halkaa laga sii ambaqaado, iyadoo muddadaas 20 beri 21 beri waxay noqoto ay guddiduna soo diyaarin doonaan bal aragtidooda. waayo waxaan garanaynaa 2012 maxaa see wax lagu soo xulay, waxaa wax lagu soo xulay oday dhaqameed. 2016 doorasho dadban oo tii ka bedelan yaa jirtay oo 51 qof odaygii dhaqanka 3 nabadoon 51 qof ergal noocaasay ahayd. tan maxay noqon kartaa marka? maxaa laga bedeli karaa? maxaa lagu dari karaa? inay bal tala bixin ka soo jeediyaan khiyaaraad ama opshama ay keenaan ama qaybo la mari karay. waxaan rajaynayaa isu dhowida shirarkaasi waxay keenaysaa isfahamku inuu dhaqsado. shayga kale ee muhiimka ah wuxuu ahaa in laysu calool furaa, layscafiyeyey, layidhi bal wax walba intaan iska dhigno aan bictureka guud sacan. sababtoo haddii ka guud wax ka halaabaan kuwa gaarka ah iyo waxa meelaha gaarkaa ku eg wax badan baa kasii halaabaya, ma qabsoomaya.
taasaa markaa waxay keentay inaan idhaahno aan qaadana sawirka guud horta inaan hagaajiyo. Jubbaland iyo dowladda federaalka arrimaha ka dhexeeyey dadkuna qof wal oo Soomaaliya wuxuu danaynayay ama uu fiirinayay mar walba talow maxay qoladan oran doontaa kan muxuu yeeli doonaa sidaas. laakiin waan wada fadhiisanay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha gaar ahaan madaxweynihii ugu sarreeyay jamhuuriyadda. waxaan isla aragnay waxa meesha ka dhacay inuu khalad ahaa, qof walbana khaladkiisa oo u muuqato wuxuu ahaa aan loo baahnayn in ilaa xad waxyaalaha noocaas ay dhacaan. laakiin mar haddaan mudug joognay waxaa jirtay wax la yidhaahdo waxay dhalay oo war wixii hore inaga dhigay reer mudug ka jira. waa dad aada dhibkooda iyo dheeftooda iyo wax badan u badan yihiin. marka taasaa waxay keentaa mar walba iscafiskooda wuu badan yahay, sababtoo haddaan markaa la iscafin tii kalaa dabada loogu sii qabo. si farsamo ana khaladaadkii dhacay ama gobolka gadaha noqoto ama kulli in dib loo fiiriyo oo maxaa khaldamay maxaa saxsanaa. aanan rajaynayo inta aanan shirkaa isugu tegin in wax badani ka soo bixi doonaan haddii ilaahay yidhaahdo la islana fahmi doono. sababtoo haddii la isu garaabo niyad wanaagno meesha uu yimaado inuu khalad jirana la isla qiro in la saxana la isla qaato way sahlan tahay markaa in hawshaa wax ka qabsoomi karaan. annagu hore waxaanu u baaqnay dadka reer Jubbaland inaan gogol dhignay dadka annaga wadano. maanta hebel baa la isticmaalay iyo hebel baa idinka hor yimid iyo kanuu ahaa iyo ma taalo qof kastoo reer Jubbaland, sababtoo dhulkaana ilaahay baa meesha ku abuuray. dadkii waa dad ehelo isku mida, wax kala tegaya ma aha. sharci iyo dastuur baa isku haya. inaan isku wadno oo aan ka shaqayno annagu shirki iyo gogashii aan dhignay inaan ka shaqayno dadka iyaga urursano, kuwa hadda gada jooga iyo kuwa banaanka ka jooga iyo kulli intaan isu wada keeno dadka iyaga iyo shaqaday lahaayeen iyo wixii maamul ahaan inaan ku waxayno. dowladda federaalkaana roolka ay sharcigu siinayo ay qaadato, ka Jubbaland uu sharcigu siinayana ay qaadato, dadka iyagana aanu ku soo celino wixii wada noolaanshahoodii iyo xasiloonidoodii iyo sistamkii dowladnimo. waan isla qiray hadday fawdadu sii socoto inayna cidna dan u ahay oo dhibkeeda keenayso. waxaan rajaynayaa arrintaasi inaan afjari doonno haddii ilaahay yidhaahdo, farsamo ahaan loogu jiro ay dhammaanayso mar haddii la isla qiray khaladka dhacay waxa uu yahay oon loo baahnayn hadda inaan miidiyaha wax badaan ka siiyo tafaasiil ka bixiyo. in waxa yaallaa uu yahay haddana maxaa nagasta maxaa ku xiga xaggeen uga dhaqaaqnaa seen yaallaa waxaa nagastee xaggeen uga dhaqaaqnaa dadka iyagoo la isu keeno intii dantu ka dhexayso danteeda wada qabsata. culaysyada kaliya waxay dheeraadku oo meesha laga qaado, xayiraad iyo xanibaad wixii oo meesha ka baxa. dowladda labada leebel ee dowladeed ama heer federaal ama heer dowlad goboleed oo qolo waliba ay qaadato sharcigu waxa uu siinaya. waxaan is leeyahay Soomaaliya waxaa jiray dareen xilligan oo kala dhasha oo baarlamaanka waana wax iska sunnadaba ka mid ah. marka xaaladdu soo dhawaato qof walba walaf baa ku dhaca, xaggee wax jiraan toloshaadku soo noqon ma noqonaysaa ma noqonaysid. taa waxaan istusnay inaan qofna qof oqdadu qaadin, qof waliba inaan nasiibkiisa qaado. weliba xildhibaanada 51 ahaa ee ka soo jeeday Jubbaland inaan u yeedhno oo aan marti qaadno oo yimaadaan oo maanta qof aan leenahay hebel baa oqdadu qabtaan ama hebel baa laga si loo gelaya ayna jirin. dadkii balintaan isu yeedhno qof waliba uu ogaaday deegaanku ka soo jeeday. kuraastu sumad intii la qaado wax jeeb lagu qaadi karana ma aha. wax intii lala ordo qofka xildhibaanka ee kursiga ku fadhiyay kursigani qabiil buu ku yimid, magac buu leeyahay, sumad buu leeyahay. sumad shaksi ma yeelan kara, sumad ka weyn buu leeyahay. marka inaan qof walbana wixii tuhun gelinaya ee cabsi gelinayana laga saaro, dariiqa saxdaana qof walba uu maro, qof walibana calafkiisa uu ku kalsoonaado. cidaan anagu uqdadu qabna iyo cidaan anagu wax ka samaynayna aanayna jirin. aanan sheegi doono insha allah waqtiga ay imanayaan oo bal xildhibaanada intay yimaadaan
la is uur booqdo ay arkaan bal deegaanadoodii iyo dhibkana ay hadda kadib noqoto bal in xildhibaanada laftirkooda deegaanada ay ka tagaan iyo say mar walba ula socon lahaayeen baahidooda iyo xaaladooda laga shaqeeyo waxaan is leeyahay muddadii hadda ugu dambeysay shir la-aanta dhacday kulan la-aanta is aragti la-aanta wada tashi la-aantu waxay keenaysaa madmadow aada u tiro badan laakiin tan dhuusamareeb waxay u noqonaysaa irid furan taasaana keenaysa in shirka kalena lasoo dedejiyo markii hore 2 usbuuc waabaan nili gudahood laakiin waxaa noo soo baxday in la xadido waqtiga taasaa waxaan ihi markaa bal 15 August ha la xadido intaa ka horeysana wixii hawle ee banaanka jiray si loo sii socdo oo qaar badan inaga inaga quseeyaan haddii ilaahay inaad guddigaas inaga shaqeyso waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed guud ahaan salku waa soomaalidu inay ka tashato mar walba wixii arrinay la gudboon waxa in la daneeyo oo la qiimeeyo u baahanna waxa waddanka ka dhexeeya halka shay ee muhiimka ana waxa weeyaan xasiloonida siyaasadeed waxay ku timaadaa transitionka ama kala guurka siyaasaddu mar walba sidoo taa macnaheedu waa midda ah inaan extensionna jirin doorashada dhacaysana muddadii loogu talagalay sidii bayaankii hore iyo kii labaadba ku qornaa inay ku dhacdo muddadii loogu talagalay doorashada oo ayna jirin doorashadaasi waxama muddo kordhina ama sidan la yeelo sababtoo ah waxaa asal u ah deganaanshaha iyo qof kastoo damac lahaa inuu ku beegsan karayo sidii shalay kuwii horeba lagu tagay inuu ku tagaan markaa waa la isla qaatay calafku inuu yahay sidiisa laakiin wax kasta wax walba in laga hormariyo xasiloonida iyo deganaanshaha dalka aad baad u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad reer galmudug waxaan leeyahay waqtiga hadda ay galmudugtan dambe iyo ururteedu dhacday iyo say u dhaqmayaan waa si aada iyo aada u fiican waxaa cajiib ahaa hadal madaxweynuhu axmed qoorqoor uu yiri oo ahaa haddaad lagu ogeydeen waran inaan wadano iyo seef yaan baan ku bedelanaynaayo beer qodashaan ka dhigayna macnihii sharkii aad lagu tuumayseen xagga nacfiga iyo beerahan u dhaqaaqayna markaa waan is leeyahay nimankaasi ama gabdhahaasi ama reer galmudug inay yaambo badan tusheen oo hadda ay tunteen oo wixii faraha lagu fiiqaya hadda ay kasoo tanaasuli doonaan aad baan u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu